haddaad rabto ilmaha guriga jooga inuu ilmo fiican noqdo aabbaha iyo hooyadu waa inay fiicnaada haddaad rabto dadka siduu ula dhaqmi lahaa inay wanaagsanaato aabbaha iyo hooyadu waa inay wanaagsanaadaan sida ay u wada dhaqmayaan ilmaha sidaynu ula dhaqmayno waa inaynu in badan ka fakarnaa السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسو دواذا جنال كيغا فردوسي اسكو فيلان ومركا لأي نيو فيديو بليس هدي اي تاي مركا كوغو هوريسي او جنال كسو بوقتو waxaan kaa codsanayaa inaad iskaraab karayso asxaabtaada kale la sii wadaagto waa ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan asxaabay soo dhawaada aad iyo aad ayaa idiin soo dhaweynayaa alxamdulilaah ilaah ayay mahadoo dhan u sugnaatay isoo celiyey mar kale anoo caafimaad qabo waxaa rajeynaa idinkana inaa caafimaad qabtiin inta xanuunsan allah subxaana watacaala allaha caafiyo inta dhimata allah subxaana watacaala allah u naxariisto inta safarka allah u fududeeyo qof walba oo muraad lana muraadkiisa allah subxaana watacaala allah u sahlo isku soo noqod wanaagsan mar kale waxaa idinka codsanayaa wiilka habarto ayna iigu duceysaan inuu ilaahay caafimaad sariica siiyo in alla iyo intay awlaad ka xanuunsantahay ilaahay subxaana watacaala allah u caafiyo intaanay awlaad haysanna awlaad baariyiin oo tayibiina oo quratul cayna allah subxaana watacaala allah ku irsaaqo aad iyo aad idinkaga mahad celinaa ducadiina quruxda badan oo mar walba aad u duceysaan ilaahay subxaana watacaala allah u aqbalo wiilka yarna caafimaad sariixa ilaahay subxaana watacaala allah noo siiyo asxaabay soo dhawaada fiidiyowga maanta wuxuu idinkaga imaanayaa magaalada muqdisho let's go aan muqdishoda aan dalxiisnay maasha allah tabaaraka allah fiidiyowga maanta xiise gaara ayuu ii leeyahay because waa wadankeygii ما شاء الله تبارك الله إله نو حفتي أو نو بركة وأمني أمان نو غدك إن بدن مصر وايدين سوق قطبية لكن ما أنت ومقدش ما شاء الله قبلها مقدش أوجوري أما صومالي ودنبا waxaan dhihi lahay ku adkaysta wadankiina aad tagteen iqaamo uma dheelmanaysaan wadan islaameed ma joogtaan cunugaaga maxaa la dhahaa ma isliid ama lagaa soo cunsuriyeeya midna ogama walool qabtid maanta waa aad ka tayo fiican tihiin hooyooyinka ku nool qurbaha masar ha aato ingiriis ha aato america ha aato canada ha aato sweden meel walba oo dhul gaal iyo dhul muslin maanta waxaa ka sharaf badan ka wadankiisa ku nool maasha allah ilaahu barakee wadankeena oo nabad iyo amni nooga dhig marka maanta insha allahu tacaala waxaa idin tusi rabaa hadduu ilaah yiraahdo dukaanka xayaat waxaana rabaa inaan ka hadlo oo dhex kor istaaga insha allahu tacaala xoogaay aan yacni faahfaahin ka dhiibo dukaamada masar ku yaalo maadaama aan masar ku noolahay iyo kuwa muqdisho isbishal xayaat maasha allah tabaaraka allah dukaanka saa ujeedaan waa dukaan weyni badan qurux badan ilaahay subxaana watacaala dadka aas-aasa allaha barakeeyo ajri xasanaadna allaha ka siiyo businesskoodana allaha u barakeeyo maasha allah waa dukaan ama suuq waxaan dhihi karaa wax walba oo u baahanta aa ka helaysid waa ujeedaan waxyaabihii rootiga la marinayo oo dhan ama macmacaan maxaa la dhahaa xalay mukathar ee dhahan maxaa la dhahaa kaas maxaa la dhahaa englishkana waxaa waa milky sweet oo macmacaanka korka loogu darto inkastoo kaas aa gurigaa ku samaysan kartid oo caanihi sokorintaas ku darta aa gurigaa ku samayn kartid haddana asoo diyaaro meeshaas ku yaalaa waa ujeedaan qudaartii oo siday u habaysan tahay aad yaabay sidaan ku dhahay maasha allah tabaaraka allah in badan dadka waxay dhahaa muqdisho qudaar ma taalo laakiin tan intee laga keenay waa ujeedaan qudaarta sida ay tahay maasha allah marka waxyaabaha aan u bagay maanta oon oolin gadaala in ka tusi doonaa insha allahu tacaala hadduu ilaahay aan masar oolin oo muqdisho yaalo gadaala ina ka tusi doonaa biidn illah laakiin waa ujeediin afakaadhadii oo ayadiio lagu diyaariyey hadday baradho noqo lahayd hadday basal noqo lahayd ayadiio kuu diyaarsan haddii ay noqoto yaanyadiio kuu diyaarsan orangigii waa ujeedaan fruutkii applekii babaygii maasha allah tabaaraka allah mooskii oo habaysan maasha allah strawberrygii blackberry everything yani oo beri oo dhan wuu wada yaalaa waa ujeedaan waxaan ku dhahay wax walbo ayagoo ku habaysanay muqdisho ku yaalaan cabitaanka casiiraadka ayagoo diyaar ah ayay ku yaalaan
dhankaas kale waxaa lagugu diyaariya waa ujeedaan hilibkii oo kuu diyaarsan hadduu ahaado hilib ari hadduu noqdo hadduu geel noqdo keegig waa ujeediin basbuusadii waa ujeediin maasha allah tabaaraka allah basbuuso keega basbuusada la dhaho special carabaha aada u isticmaalaan wuu yaalaa wadankeena waa ujeedaan qaybta bakeryga waa ujeedaan maasha allah rooti ka maqan miyaa ujeedaan maanta ayu rooti haddaa hataa dhaayad ku jirtid baroomkia meesha ku yaalaan qudaasoo 100% qamadii bis laga sameeyey maasha allah tabaaraka allah marka wadankeena nimcadaas oo dhan ayaa taalo ilaahay subxaana watacaala allaha noo barakeeyo wax walba oo u baahatana waa aad ka helaysaa muqdisho malabki waa kaasaa ujeedaan maxaa la dhahaa malabki waa kaasaa ujeedaan maasha allah tabaaraka qaybta aan u socdo marka waa qaybtaan maasha allah allow barakay xamar aan dhahayo waa ujeedaan fitness kaas waxaa u maleynaa horey oo idin tusay dadka dhaayadka ku jira ah cuno masar inkastay lacagta ku kala duwan yihiin xamar $5 baroo ka joogaa masarna $3 baroo ka joogaa marka waa ujeedaan xogaha lacagta firqa yar ha u dhexe special k gabdhaha raba dhaayadka ku jiro xamar joogo special k kan gaduudka oo geeska special k ku qorneed ka faa'iideysta Weetabix ma yaalo ingiriisana lakaga keenaa anag Weetabix ma yaalo masar waa ujeedaan waxaan sugnaa dhowrka biloodba marka xaajiga imaanaya uu nooga soo qaadaa UK so waxyaabihii maxaa la dhahaa oo ilmaha ay cunayeen oo dhan waa kuwaas halkaasi ku yaalaan tan kaleetood maasha allah allah mubaarak aan u dhahayo waxay tahay caanayaashaas oo dhan abtamil gabadhayda yartaa hansiinaye ingiriisaa lagaga keenaye maxaa la dhahaa cow on gate waa ujeedaan maasha allah tabaaraka allah caanahaas cow on gate aad iyo aad ay caruurta ugu fiican yihiin soo ciyaalkaygan soo sii jira markay yaraayeen xamar way yaalaan SMA gold way yaalaa soo ayu caana aa u baahato iyo ayu waxa u baahato halii keena ma jirto muqdishaa ka dhex helaysaa waa ujeedeen boorashka ayagoo gasaciyeysan ay ku yaalaan ayagoo maxaa la dhahaa magaca soomaalida wato iyo ayagoo magaca dibadda wataba waa ujeedaa marka dadka dhaho muqdisho wax walba ma yaalaan muqdisho wax walba way yaalaan saa adiga ugu noolaatidna waaye noloshaada adaa waxaa ka samaysan kartaa sida aad rabto haddiiba aad qarash ka haysatid soo marka xataa iskoolaadkeeda maasha allah tabaaraka allah warbixina idinkaga keeni doonaa $130 cunugaaga oo British school kuugu dhiganaa waxbarasho haay tayo leh uu kaaga dhiganaa berri wadankuu ka imaado markuu ku noqdana ina jaamacadda uu rabo kaaga aadi karo ayaa muqdisho ka helaysaa marka gabdhaha maanta danaynayo inay soo guuraan yacni wadan muslimiin caruurtooda geystaan maxaa la dhahaa muqdisho aad iyo aad ay u anfaceysaa maxaa yeelay waa wadankoodii af soomaaliya lagula hadlayaa awlaada af soomaaliya u baranaysaa soo wadan walbo oo aad tagtidna la qabsiya u baahan yahay inta ugu horeyso la qabsiya u baahanta ama masar ima ama kenya tag ama soomaaliya meel walbo soomaaliya wadankaaga waaye iqaamo uma dheelmanaysid maxaa la dhahaa walwal kuma hayo berri ma lagu tarxiili doonaa isma lihid si raaxalaad ku noolaanaysaa marka maasha allah tabaaraka allah ilaahay waxaan weydiisanaynaa aamiinna dhaha wadankeena inuu ilaahay subxaana watacaala nabad nooga dhigo ilaahay noo nabadeeyo wallaahi adaa ugu faraxsana farmashiyaasha waa ujeediin farmashiyaal aad u waaweynaa xataa ku dhex yaalo qaybtaas kale qaybta electriga waaye oo mashiinada iyo waxaas idima soo gudbinayo laakiin waa ujeedeena umaleynayaa cabitaanada oo ingiriis maanta ingiriis yaalo iyo yacni wadamadaas kale laakiin masar aan laga helin squish midka la dhahayo wuxuu yaalaa muqdisho maasha allah tabaaraka allah marka haddii aad raadinaysay inaad wadan muslim ku noolaatid kaaga wax kaaga qaymo badan ma jirto wallaahi saraaxa ilmahaaga oo aad diinta xooga ku saartid dhaqanka caruurtana horta guriguu ka bilowdaa ama wadan muslim joog ama wadan gaala joog marka waxaa lagu kala duwan yahay biicadda soomaaliya maanta waa biicad muslin ah 100% hooyooyinka guuray ama raba inay u guuraanna waxaan tala ku sii lahay cunugaaga maalinkaa qurbaha joogta sidaad gacanta uga haysay oo u ilaali jirtay u ilaalso markaad xataa soomaaliya tagtid
cunugaaga sida aad u ilaalisa jirta u ilaalso ama masar imaaw ama kenya imaaw ama soomaaliya tag meel walba u tagtid cunugaaga sida aad u ilaalisa jirtay u ilaalsa marna gacanta ha ka daynin marka dhaqan walbaba guriguu ka bilowdaa hooyo walba waxaan dhihi lahay ku dadaal cunugaaga guriga kula dadaal maasha allah tabaaraka allah maanta maxaa la dhahaa hooyada ilmaha yaryar haysato fursad dahabiyaha hortaalo oo wadankeeda inay u guurta ah marka gabdhaha waxaan dhihi lahay masar rabo haddii ay idin suurtogelayso wadankiina taga wadankiina wax inkaga wanaagsan ma lahan insha allah fiidiyoda dambe waxaa idiin soo gudbi doonaa daarusalaan iyo sida looga nool yahay hadduu ilaahay yiraahdo waxaan rabaa su-aal gabar walaala iisoo qortay iyo wiil inuu ah ma aqaano ayaga raala ahaada qofku ahayba caruur waxaan haystaa 15 jir ugu weyn yahay iyo kuwa ka yaryar iqaamada iskoolaadka ma ku heli karaa walaalayaalo horta this time tana mataanigiyaa bilaaba rabo iskoolka dhanba 2 biloodaa ka dhiman masarna wax laga barto waa 6 bilood saa hore idinkugu sheegay September dhexdeeda la furaa iskoolaadka ka ugu dambeeya 22 September la furaa waxaana la xiraa May bilowgeeda la xiraa wuxuu furan yahaba waa October November iyo December January fasaxa la soo galay February 9keeda ku noqon doona February March iyo April oo la soo xiraya iyadana aakhirkeeda so ilmaha ugu dambeeyo May ayay soo galayeen intaas kaliya waa inta iskool aado lacagaha aragtay oo tirada badan waxa lagu shubo waa intaas marka hadoo kale hadii aa imaatid waxaa laga yaabaa inaad iskool helin iskoolaadka ka wada buuxsamaan iqaamo laakiin siyaaxi ahaan heli kartaa marka waa ujeedaan karameel meeshaan maasha allah macmacaanka restaurant dhan waa wax walba aa ka helaysid marka waxaan idin dhihi lahay fiidiyowga meel dheer hala gaarsiiyo waxaan ku dhahay samarkan caruurta hala geeyo wadankii maasha allah meel ka wanaagsan ma jirto muqdisho kaliya maaha maxaan ku dhahay wadankii oo dhan hala wada geeyo insha allah tacaala aniga waa rajaynayaa inaan mar tagi doono samarkan ha noqoto ama kan ku xigta ha tagtee ha noqoto insha allah tacaala isbishal xamar kaliya uma socdo anigana ilaa hargeysa u socdaa asalaamu calaykum